السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إدلكينبا meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno socdaal toddobaadkan uu ku yimid wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Wafdigan magaalada Cape Town waxay uga qayb galeen shir caalami ah oo looga hadlayay sahminta shidaalka Afrika waxaana ka soo qayb galay madax ka kala socotay dalalka dunida iyo wadamada Afrika. barnaamijkan daawadayaal intaan ku guda jirno waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe. wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo sidoo kale xildhibaan ka mid ah golaha shacabka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo mudane Cabduqaadir Siisi ayaa magaalada Cape Town waxay kaga qayb galeen shir caalami ah oo looga hadlayay sahminta shidaalka Afrika isla markaana ay ka qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay qaaradda Afrika iyo dunida inteeda kale. waxaa sidoo kale shir ka qayb galay shirkado caalami ah oo ku caan baxay wax soo saarka iyo ka ganacsiga shidaalka caalamka. Soomaaliya oo sanadkan dadaalo badan ugu jirta inay la soo baxdo kheyraadkeeda dhex eegaaga dhulkeena hooyo ee Soomaaliya iyo midda badda gaar ahaan shidaalka ayaa ka qayb gashay shirkan maadaama shirka sanadkan diiradda lagu saarayay sahminta shidaalka Afrika. wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa shirkaasi ka jeediyay khudbad aad u qiimo badan isla markaana uga hadlayay in Soomaaliya xilligan ay diyaar u tahay sahminta shidaalkeeda in muddo ahna uu socday. waxa uu wasiirku warbixin ka siiyay ka soo qaybgalayaasha shirka sida shirkadaha caalamka xilligan ay wajihi karaan Soomaaliya. waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in Soomaaliya shan kadib maanta ay buuxisay arrimo badan oo muhiim ah isla markaana horumar badan ay ku talaabsanayso dawladda Soomaaliya loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan kheyraadka dabiiciga ah ee Ilaahay ku maneystay. runtii sidaan la socono qaaradda Afrika waxay dhawaanaha noqonaysay ku soo biireysay wadamada ka faa'iideysta kheyraadka Ilaahay uu ku abuuray gaar ahaan xagga shidaalka. waxa jira marka shirkan waxa isugu imaanaya dawlado shirkado waaweyn oo arrimaha shidaalka ka shaqeeyo iyo kuwa arrimaha shidaalka ku dhex jiro hay'ado caalami ah intaba meesha isugu imaanayeen. waxa looga hadlayay waxay tahay inay qolo walba soo bandhigto meesha ay wax u marayaan sida looga faa'iideysanayo sida loo wada shaqeysanayo adduunka macnaha maalgelinta ayaa lagu wada tartamaa. qolo walba waxay rabtaa maalgelinta inay soo jiidato sababtoo sida hadda la socono shidaalka sicirkiisa ugu hooseeya marka in la helo marka investment waxay u baahan tahay dadaal badan ayay u baahan tahay oo dadkii maalgashanay xoogaa walwal ayay ka qabaan inay maalgashtaan maadaama sicirkii uu hooseeyo si marka taa fursad loogu wada helo ayaa waxaa la qabtaa shirkan waa shir sanadkiiba mar la qabto kan waa kii 22aad halkaas ayuu horta guud ahaan uu shirka uu ku saabsanaa. annaga Soomaali haddii aan nahay sidaa la socoto dhammaan wadamada geeska Afrika ugu wada hareersan ayagana dhawaan waxay la soo wada baxayaan ay bilaabeen inay la soo baxaan shidaalkoodii inay la soo baxaan ayay bilaabeen. annagana sida aan filayno Soomaaliya waxaan filaynaa inuu ku jiro shidaal annaga laftigeena marka dadaal ayaan wadnaa annagana marka inaan u sheegno meesha ay wax noo marayaan meesha aan socono qaabka aan rabno inaan ku gaarno si adduunyada ay u fahamto kheyraadka Soomaaliya ku jiro iyo qaabka ay looga faa'iideysan lahaa. shirka inta uu socday waxa wafdiga ay kulamo gaar ah la qaadanayeen shirkadaha caalamiga iyo dawladaha daneeya in xilligan Soomaaliya ay kala hadlaan arrimaha shidaalka waxaana taasi ay muujinaysay in shirkadaha caalamka ay tartan ugu jiraan in xilligan suuqa kala iibsiga shidaalka ay Soomaaliya keenaan. shirkan wuxuu ahaa shir caalami ah Afrika ma taqaana aad isugu qabanqaabisay in la qabto. waxaa ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo wasiirka batroolka iyo macdanta uu hogaaminayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad muhiim Soomaaliya u ah inay ka soo qayb gasho. waxyaabaha Soomaaliya kala noqonaysa shirka waxaa kamid ah markuu ugu horreeyay Soomaaliya in shirkado badan iyo dawlado badan oo meesha yimid bal inay ogaadaan hawlaha shidaalka ku aadan ee Soomaaliya ka socda iyo Soomaaliya sida u daneynayso in hawlahaasi ma taqaana wax laga qabto. marka waxaan la kulanay shirkado aad u badan kuwa hore Soomaaliya uga shaqeyn jiro oo ka maqnaa wadanka iyo kuwa cusub intaba. marka intaba waxa aan la yeelanay kulan aad u dheer oo muhiim ah wax badan oo isku afgaran. waxaa sidoo kale wafdiga uu hogaaminayay wasiirka ay la kulmeen jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town waxaana ka soo qayb galay kulankaasi waxgarad Soomaaliyeed aqoon-yahano madaxda jaaliyadda
dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreynna waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Safe Somali Community Yusuf Cumar Axmed oo kulankaasi si weyn u soo agaasimay, waxaana wafdigaasi uu sharaxaad ka siiyey xaaladda Soomaalida ku nool magaalada Cape Town iyo ganacsiga ay ku haystaan intaba. war la qabo xiisamo leh anagu maalin kasta isla joognaa. muhiimaddu waxay ahaaday inaan kala faa'iideysano marka maadaama laba qofood oo aniga iga horeysay ay informationkii xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay Soomaalida Koonfur Afrika ay u gudbisay, waxaan jeclaysanahay inaan waqtigayga aad u soo koobo markasto dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waxay aad iyo aad ay ugu xiran yihiin oo qof kasta ay og tahay oo xuquuq u tahay canuga aan qaangaarka ahaynin ee ku nool Koonfur Afrika wuxuu qoyskiisa uga fikiraa sidii hooyo iyo aabaha ay uga fikirayaan. sidaas daraadeed madaxdayna soo dhawaada, waxaan diyaar u nahay wixii karaamkayna ah oo wadankayna aan ku celin karno inaan ku celino. waxaan ahay dad xoogsata ah, insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan marxaladda ganacsiga aan gudbi doono. agaasimaha sahanka iyo wax soo saarka wasaaradda macdanta iyo batroolka mudane Cabduqaadir Abikar ayaa goobtaasi ka hadlay, waxa uu jaaliyadda warbixin ka siiyay waxyaabaha ay sugayeen inta badan shacabka Soomaaliyeed ee u dhunduleeleen oo ahaa in Soomaaliya xilligan ay leedahay shidaal iyo in kale. Soomaaliya aniga ma dhalan markii la baari jiray, waxaan u maleynayaa meeshaan dadka ugu weyn inaan ku jiro haddaan ahayn ninka ugu weyn. waxaan anoo yaraa waxaan maqlayaa Soomaaliya waa la baarayaa, batrool laga baaraa. markii dambana aniga naftiga kulliyadda geology kale si batroolkii aan u baaro. dibadahaas meelahaas waa aaday waa marka waxa maaragtay si haddana isla markaas batrool aan u baaro. adiga Soomaaliya batrool laga baaray, waxaa laga baaray kontameeyadii dhamaadkeed, waxaa laga baaray lixdameeyadii, waxaa laga baaray toddobaatameeyadii, waxaa laga baaray siddeetameeyadii. intaas nasiib darra ayaa iska dhacday. waa la baaray meelaha qaarkood waxaa ceelal badan Soomaaliya laga qoday oo batrool ah. meelaha qaar waxaa lala kulmay waxyaabo maaragtay cadeynaya batrool in Soomaaliya ay leedahay, laakiin inta ceel la qoday batroolkii ma soo boodin oo nasiibkaas lama helin waagaas. ka bacdi dhibaatadii Soomaaliya dhacday waa la soo laabtay hadda. marka Soomaaliya waxaan leeyahay horta koob batrool ay leedahay, calaamado daliil u ahna waa leedahay. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa su'aalo waxay weydiiyeen wasiir Maxamed Muqtaar iyo waliba xildhibaan Cabduqaadir Siisi, kuwaas oo madaxda jawaabo ay uga siinayeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey. haddaba wafdigan intuu joogay magaalada Cape Town waxa uu socdaal ku tagay jasiiradda lagu magacaabo Robben Island ama xabsigii uu ku xirnaa halgamaagii South Africa Nelson Mandela, isla markaana noloshiisa rubac qarni ka mid ah halkaasi mugdiga iyo dhibaatada badan uu ku qaatay. daawadayaal markan waxaan fuulaynaa ama raacayna doonta nageynaysa jasiiradda loo yaqaan Robben Island ee lagu magac daray Mandela ama halgamaagii South Africa. doonta waxay qaadaysaa ilaa 350 ruux, waxayna sii socon doontaa 30 daqiiqo kadib. 30 daqiiqo markaa xagga tagna kadib ayaan sii eegi doonaa xaaladdu waxay tahay iyo wixii wafdigan ee la kulmaan insha Allah. jasiiradda waxa ay ku taallaa badda dhexdeeda, waxaana maalin walba u taga dalxiis kumanaan shacab ah oo ka kala yimid qaaradaha dunida sidii ay u soo arkaan xabsiga loo bedelay goobtaasi dalxiiska. marka aan gaarnay goobtaasi waxaa durban lagu qaaday gaari bas ah oo loo diyaariyay in uu nageeyo goob walba oo loo cayimay loona taariikheeyay siyaasiyiinta xabsigaasi ku xirnaa ee u dagaalamayay xornimada dalka Koonfur Afrika. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta waa maalin annaga taariikhno ah inaan booqano meel Afrika taariikh u ah, South Africa gaar ahaan taariikh u ah. waxaan soo booqonnay ama aan joognaaba hadda Robben Island meeshuu ku xiraa Nelson Mandela iyo siyaasiyiintii South Africa u soo halgamay xorriyadda inay qaataan oo kaga baxaan midabta koorkii. waxaan soo aragnay xabsiyada qaabka u dhisan yihiin iyo meelahay mataqaana si ay u kala duwan yihiin iyo si ay u shaqayn jireen iyo sida loogu xamaali jiray oo loo qasbi jiray noloshay ku noolaayeen. taa marka waxaan ka baran karnaa xorriyadda in loo soo maray nolol adag iyo dhibaato in loo soo maray. gaariga waxaa saarnaa wiil dhalinyaro ah oo loo tababaray in dadka dalxiisayaasha ah uu warbixin ka siiyo goob walba oo xabsigaasi ku taala, waxaana sidoo kale dadka uu uga sheekeynayay taariikhda dadka xabsigaasi ku xirnaa iyo waliba wadamada xilligaasi qaybta weyn ka qaatay in shacabka South Africa laga saaro dhibaatada gumeystaha uu ku hayay.
And I know with my friends from Somalia and with the Honorable Minister on board, we welcome you once again to South Africa. Send our regards to you, to our beloved people out there. waxyaabaha halkaasi aada looga xusay waxaa ku jiray in Soomaaliya ay kaalin weyn ku lahayd xilligii shacabka South Africa ay u dagaalamayeen inay iska dulqaadaan heeryada cadawga midabta koorka ku sameynaya ee haysta dalkooda waana tan keentay in siyaasiyiin badan oo u dhashay dalka Koonfur Afrika xilligaasi ay yimaadaan Soomaaliya isla markaana tababaro lagu siiyo waxaa sidoo kale xilligaasi Soomaaliya ay ka heleen caawinaad mug leh oo ay shacabka South Africa iloobin بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxay ahayd maalin taariikhi ah waxaanu booqanay jasiiradii Robben Island ee uu ku xirnaa geesigii Nelson Mandela ee Afrika Soomaaliya kaalin muhiim ah ayay kaga jirtay halgankii lagu diray midabta koorka waxa kamid ahaa kaalimihii loo geystay abaabulka iyo baraarujinta qaaradda Afrika guud ahaan in lagu abaabulo oo wufuud ka socota dawladda Soomaaliya ay tageen dalal badan oo Afrika ah kuwaas oo ku baraarujinayay in loo halgamo xornimo gaarsiinta dalalkii markaas ku jiray gumaysiga ee Afrika sida Angola, Mozambique, Guinea-Bissau iyo in midabta koorka laga saaro Koonfur Afrika waxa kale oo Soomaaliya ay qabatay waxa lagu tababari jiray garabkii dhalinyarada ee ANC dalka Soomaaliya ayay imaan jireen oo lagu tababari jiray sidoo kale madaxweynihii Soomaaliya ee 7-meeyadii 1974 sanadkaas isaga ayaa ahaa gudoomiyaha midowga Afrika marka booqasho ayuu ku kala bixiyay dalal badan oo Afrika ah oo ay kamid tahay dalka South Africa marka madaxweynaha waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee life oo la kulma Nelson Mandela intuu maxbuuska ahaa waxa laga yaabaa hadda madax badan oo maanta adduunka joogtay inay soo booqdaan jasiiradda iyo xabsiga kadib markii uu Nelson xoroobay ama uu maaragtay maxaa la yiraahdaa dalka madaxweyne ka noqday laakiin madaxweynaheenu markaas ayuu booqday asagoo maxbuus ah codsaday inuu la kulmo life oo la kulmo waana la kulmay taariikh muhiim ah ay noo tahay marka inaan halgankaas weyn looga saaray dadka madowga ah midabta koorka xuquuqdoodana loola sameeyay xuquuqda kale ee dadka kale ee South Africa inuu ka soo qaatay kaalin muhiim ah dalkeena Soomaaliya aad bay noogu tahay taariikh fiican maanta markii aanu ku jirnay tourka ama kormeerka aan sameeynay baska ninkii nagu waday ee na hogaaminay tourka hogaaminay waa uu xusay gaar ah dawladda Soomaaliya iyo xilligaas inuu madaxweynaha Soomaaliya yimid Afrika marka taariikh way noo tahay anagana de waa tusaale cad oo u ah dadka Soomaaliyeedna inay waxa indhahaagu qabanayaan inta aad dhex socoto xabsigaasi sawirro iyo muuqaalo muujinayay nolosha xabsiga iyo sidoo loola tacaamuli jiray siyaasiyiinta xilligaasi lagu soo xiri jiray goobtaasi goobta ugu weyn ee qof walba uu aad u daneynayay waxa ay ahayd inuu arko qolka uu ku xirnaa Nelson Mandela 18 sano kamid ah noloshiisa gaar ahaan xabsiga waxaa qolkaasi dhex yaala sariir yar iyo busto uu ku seexan jiray sida la sheegay waxa kale oo dhex yaalay baaquli yar iyo galaas uu cabitaanka ku cabi jiray Robben Island waa meel ay UNESCO ama caalamku u aqoonsadeen meel taariikhi ah ujeedada taariikhi loogu dhigo waxay tahay in jiilka cusub ee aan doona hadii la ay ka bartaan waxa ay soo mareen wadanka South Africa iyo halgankii loo soo maray runtii markaan dhimaado shakhsiyan waxa aan dareemaysaa waxay tahay in qiimaha ay ku fadhido bani aadamnimada iyo xorriyadda iyo qaabkay uga hortageen bahdalada iyo caburinta ay kaga hortageen runtiina waa wax uu shakhsiga qofka marka yimaado uu dareemi karo in haboonta qofkii fursad u heli karo inuu yimaado wax laga bartana jiilka loo gudbiyo sidoo kale Soomaaliya anaga dib baan soo marnay laftigeena inaan taariikhda wax ka barano ma santiin Anisnidi mamudin, siki amamagin, hakan nijlasinin. Portaqis mamarin, ana o malaysin, Mozambique Angola. Indihi Khartouna. Ini lagu mirai. Indihi Khartouna. Ini lagu mirai. South Africa mamudi. South Africa mamudi.
عقلي مرسلا عقلك عارف مقر إذا قلت mandela intuu xabsigaasi ku jiray waxa uu qoray buug ugu magac daray socdaalkii dheeraa ee xurriyadda. iminka waa goob loo soo dalxiisto waxaana sanad walba looga kala yimaadaa guud ahaan dalalka dunida iyada oo xilliyada fasaxa gaar ahaana xilliyada kulaylaha ay ka jiraan dalka koonfur afrika ee aad u soo booqdaan dadka kala yimaada dunida dacaladeeda iyo weliba dadka u dhashay dalkani South Africa. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijkan gaarka ah waxaan idin diyaariyay isla markaana idin tabinaya anigoo Cabdilaahi Maxamuud Amiin Cabdilaahi Qorshe. inta barnaamijkan la mid ku kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. idinna waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan.